marka uu qofkii xamaamka galayo muxuu leeyahay bismillaah allahumma inni a'uudu bika min al-khubuthi wal khaba'ith bismillaah ilaahay bisinkiisa dayrtay allahumma ya allah inni a'uudu bika waxaan ka bagan galayaa min al-khubuth shaydaanka lab wal khaba'ith iyo shaydaanka dhadig ayaan ilaahay ka bagan galayaa ilaahay shaydaanka lab iyo kuwa dhadig ilaahay iga badbaad qaybiisa kala duwan ilaa waa labadaas un kulay waa mid laba iyo mid dhadig haddii tu dhadig ay igu soo fakan lahayd ilaahay iga jooji kullabe haddii oo qoori igu soo fakan lahaana ilaahay iga jooji labadaba ilaahay baad ka maangashay subxaanahu wa tacaala marka waxaa laga faa'iidaysanayaa halkan anna shaytaana yaskunu alkhabiitha min alamkinati walashkhaas shaydaanku wuxuu degaa dalka xun iyo dadka xun dadka xunna wuu dhex degan yahay dalka xunna wuu degan yahay dalka halka xunna wuu degan yahay labadaas xarun u ah haddaad qof xun ag fadhiisato ama la saaxiibto shayaatiin baa ka soo dareeraysa tanazzalu calaa kulli affaakin athiim ilaahay wuxuu yidhi shayaatiintu waxay ku soo degtaa beenaalayaasha been abuuradka badan ayay ku soo degaan shayaatiintu oo kuwaasaa xarun u ah marka qof beenaalo oo been abuurad badan oo sharwadeena haddaad ag fadhiisato shaydaannaa ka soo dareeraya alam tara anna arsalna shayaatiina cala alkaafiriina ta'uzuhum asan ilaahay baa ku soo kicinaya abaabul bay ku samaynayaan shayaatiintiyo markay ilaahay diideen buu shayaatiin ku salliday waman yacshu can dikri araxmaani nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin ilaahay dikrigiisa qofka ka taga anna shaydaan baan u diyaariyayoo isagaa ku lifaaqan marka ashayaatiinu taskun waxay degaysaa alkhabiitha min alashkhaas dadka xunxun bay dhex deganta walkhabiitha min alamkina goobaha xunxunna way deganta shayaatiintu sida had iyo jeer kudaafadaha iyo xamaamkan iyo meelahan qurunku uu yaallo halkaasay degayaan marka meesha qurunkee kudaafada lagu xaajo gudanaya marka uu qofku galaya wuxuu leeyahay ducadan u akhriyaya ilaahay buu ka dayranaya subxaanahu wa tacaala waxba ma yeelayaan biidin illaahi tacaala waxaynu aragnay dadka qaarkooda intay xamaamka galeen iyagoo suuxsan laga soo qaaday ama iyaga oo jidhka dhaawac uu gaadhay oo markii bannaanka u soo baxeena qur-aanka lagu akhriyeyna ilaahay ka dulqaaday subxaanahu wa tacaala qofkaasi digrigii baanu iyo gaashaankii baanu samaysanin shayaadiinta noocana ilaahay laga magan gelaya uu ka samaysan lahaa